warbixinta ayada oo faahfaahsan waxaa runtii aan la sugayaa madaxweyne ku-xigeenka Barre Faatax oo runtii faahfaahin aad u ballaaran naga siin doona arrinta balse waxaa hadda inoogu soo muuqan madaxa SSC oo caawa halkan nala fadhiya Axmed Cabdullaahi Cabdidaarod السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بلينا يا راس عسير State of Somalia دلكا يددكبا وحكلون سلام كليا لابك سوق ديوجد بينيا تدوينين هالكن سويمد يتدوينها غير راس عسير وعليها همبليو أوجول waxaan jecelahay anigu inaan waxoogaa ka yara hadlo sababtu waxa weeye marka la raas casayr ay SSC waa laba mataana guri bay ka wada yimaadeen gurina way ku wada dhasheen dhibaatana way wada gaadhay waxbaynu samaysanay waxaanu jecelaynaynu meel gaadhno nasiib darro geedkii aynu beernay aynu walaalnimada ku beernay aynu midnimada ku beernay aynu tolnimada ku beernay waxba kamaynaan helin waxa ugu yar laami labada state midna laami lagama sameyn waxa laga sameeyay dhakhtar iyo dawooyin iyo ardaynimo iyo wax doonaa haday midnimo jiro waliba annaku waanu dhaanaayo meel walba laga soo galay waa dhul banaan idinka laami laydinka soo galana laydinkama sameyn ulajeedadu waxa weeye dadku waa dadkeennii isimadu waa isimadeennii dhulkuna waa dhulkeennii manaxa ayaa qabsaday maamul aan garanayn oo kala gooyay dhulkii Puntland isagaa wuxuu inagu beeray cadowtinimo dhexdeena inuu ka abuuro uu markayna gaarsiiyo inaynu inagu kala daadano quwadii qurahayd soo taagnayd inay maanta kala daadato oo inagu sii balaadano inkastoo danu tahay deegaanka maalintii calankaa korka layga saaray maalintii la taagay ee Ingiriisku ka kacay waqooyiga waxaan ahaa ardaydii ugu horeysay loo dhiibay ninkii korneelka ahaa ee calankiisa laalaabtay halkaa gushi galiyay gacanta ruuxay baan ahaa waxa lahaa waad ku raaxaysan doontaa meel baad ku gaari waana ku gaaray laakiin nasiib darro waxay helay waxaa jirin cayayaan baa helay Soomaalinimo ma jirto way baabaaday calankiina maanta meel jiro ma garanayo mahma aan qurux badnayn aan idinku mahmaaho aan ugu mahmaaho state kale ilaa Puntland ma wuxuu kari waaye maanta ninka meesha haysta sida Cabdulqaadir u sheegay isanku cadow baanu islaynay dhulkayagii baanu bar ka saarnay daraad bay nagu soo duuleen intuu istaagay buu yiri alqaacida ayaa halkan timid kuwa nagu soo duulayna wuxuu waa aniga walaaladiina musbuut saagu reexay oo annaka ahayn miyaynu adkaysan karnaa taasi ma tolbaynu moodi karnaa taasi tolkeen lama mid maaha waa ninka meesha haysta iyo dawladdiisu ha dhacaan balayaan waxa weeye dadka ku uumanalkaasi walaalaynu nahay Siciid iyo Maxamuud iyo Maxamed bayna wada dhalay walaalaynu nahay kama goy karna iyaga laakiin maamulku waa maamul maantana la dagaalamaya dawladda federaalka jecelna dawladiina jirin maantana dibada ka gujinaya isanku sanadka uu sheegay uu yiraahdo loo kordhiyo asagu diidan meel ku wada sama garanayno waxa la yiri
gabadhii gurigayna teeda u soo hoyatay ee aan carruurta lahayn aroornimadii markii uu toosay oo aan qoolkii qaatay ayay tiri wiilka gabadhayda qaba waakii markaasana weli ka xoogani halkaa socda markaasay tiri ka xoogaalihi inantayda kamu dhali waayeen oo waa garanayaa war ma Puntland baa maanta weyday tolkeedoo ciilan oo SSC-ya amba raas casayra inay maanta iska rabtaagto oo xoolaha dhaxalku inooga tagay harti ee boosaaso dekada waynu wada leenahay inaynu qaybteena qaadano midnimada Soomaaliyeed waa halkeega midnimada Soomaaliyeed ha noolaato midnimada goboladuna ha noolaato waxaynu u baahanahay yaynaan isla istaagin cidlo yaynaan istaagin SSC State of Somalia Ras Casayr State of Somalia qaar kale oo filaayo inay yimaadaan oo soo socdaan way soo socdaan qaar kale waqtigaa inoo dhalay deegaankaasi wuxuu yeelan doonaa ilaa 4 ilaa 3 xisay oo aynu hadhow ku raaxaysano oo aynu isugu nimaadno balateenu waxa weeye nin walba halkaa ka soo shaqeey nin walba halkaa ka soo dhis caafimaad ahaato siyaasad ahaato waxbarasho ahaato waxay dootaba ahaato balateenu waxa weeye waa Soomaali weyn caasimadeenu waxa weeye waa Muqdisho madaxweynaheenu waxa weeye waa ka Soomaali doorato ee la isku raaco laakiin inaku waxay noqonaynaa kaabayaalkaba dawladda la dhiso dawladda la abuuro dawladda meesha timaada Soomaaliya ha noolaato Soomaalidu ha noolaato waxaan idin leeyahay aniga iyo qola halka fadhida oo dambayn doonto hadli doonta waxaana lagu hayaa sida saasana lagu hayaa waxaana lagu hayaa laba cadow oo dilaaya oo aan ogolayn hangoolka afkiisa marka lagu qabto ogobey dhibaato ku qabsata nimanka jooga Hargeysa ayay State of Somalia idinka dal loogu dhow cunahana waana la hayaa waa dadkan u baahnay inay naga fujiyaan cadowga dadkan u baahanahay inay cadowga waxaanu galaynaa iyo idin sheegaynaa dalka inta noo hadhay way walaalo noqdeen goormada anu shisheeye noqday goormu kaas walaalo noqday goormay Hargeysa wax isku noqdeen anu ma garanayo miyaanan ahay ila sixi maxaana ila sixi arti miyaanan ahay وسلامتي بلدتين وحوي وهلجن ودسمو goboleed وإنكو مدنقنا وإنكو لفعاتي دماغي إدوكو أنكو نوان حرينا ومدى Puntland كنو قول وين لغا حرية عدو غايسا Somalia هنولاتو عدو غيبو هجبو من نمدي واهل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته